بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن دابديال waxaad ku soo dhawaataan warka qaranka TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre oo Gaaray Guul taariikhi ah Walaac Xoogan oo soo wajahay wadamada diidan horumarka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo maxkamad la soo taagay dawladda Soomaaliya oo dalka ku soo celisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Kenya wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka wada hadlay sugidda amniga doorashooyinka iyo fallaagada Yemen oo wada hadal aqbalay qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka qaranka TV haatan waxaad ku soo dhawaataan iyagoo faahfaahsan iyadoo ay soo tarayaan wararka la xiriira kulanka taariikhiga ee dhawaan la filayo inuu dhaxmaro madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa si hordhac ah loo helayaa magacyada qaar kamid ah xubnaha kala matali doona labada dhinac kulankan oo maalmaha soo aadan ka dhici doona dalka Djibouti ayaa xubnaha ku matali doona dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa kamid ah kow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre saddex gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan afar wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno kale oo aan wali magacyadooda la helin halka dhinaca Somaliland ay matali doonaan kow madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi labo gudoomiyaha kurtida Somaliland mudane Salebaan Maxamuud Aadan saddex wasiirka arrimaha dibadda Somaliland mudane Yaasiin Maxamuud Faratoon afar wasiirka ganacsiga Somaliland mudane Maxamuud Xasan Saajin shan wasiirka xanaanada xoolaha Somaliland mudane Siciid Sulub iyo mas'uuliyiin kale oo ayana wali magacyadooda la helin kulankan ayaa ah mid muhiimad gaar ah u leh midnimada ummadda Soomaaliyeed oo haatan kala daadsan balse waxa hadda soo muuqanaya rajo wanaagsan oo ku aadan Soomaali mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa durba bilaabay fariimo ay isku weedaarsanayaan baraha bulshada oo ku aadan sida ay u taageerayaan kulanka muhiimka ah ee la filayo in dhawaan uu ka dhaco dalka Djibouti sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ayaa dhagta u taagaya la socoshada wararka la xiriira kulanka ee hadba soo koraya iyagoona ka dhursugaya qodobada ka soo bixi doona kulankaasi waxa maragma doonto ah in cid ay dhibsanayso midnimada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dalalka shisheeye oo diidan soo laabashada quwadda Soomaali weyn taas oo wax ka bedeli karta qaaradda Afrika iyo dunida Islaamka dawlad waliba oo dunida ka jirta waxay og tahay awoodii ay Soomaali lahayd xilligii ay mideysneed taa oo xitaa keentay in Soomaaliya ay u dagaalanto xornimada dalal Afrikaan ah oo ay ku guuleysatay si walba noqotay Soomaaliya ayaa hadda u muuqata mid cagta saartay wadada kuusha xilli shisheeyuhu wali wada daminada uu u dhigayo Soomaalida waxaana xusid mudan in Soomaaliya ay og tahay in aan loo ogolayn horumar iyo nabad ay gaarto waxa hadda isku soo dhawaaday qulubta shacbiga Soomaaliyeed waxaana muuqata in inta badan ay ka midaysan yihiin aragtida dawliga ah inkastoo faano la fari kama qodna ay taagan tahay loona baahan yahay dib u heshiisiin ballaaran oo u dhaxaysa isirka Soomaalida oo dhan ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa horay guulo wax ku ool ah gaaray inkastoo dhaliilo ay jirto haddana arrinkan haatan taagan ee qusaya isu soo dhawaashaha iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa noqonaysa guul taariikhda gasha waxaase looga fadhiyaa in geedi socodkan ay ku soo gabagabeeyaan Soomaali oo mid ah taa oo taariikhda u gali doonta
dhinaca kale haddii aan eegno arrinkan la xiriira midnimada Soomaaliya iyo kulanka dhawaan la filayo inuu dhaxmaro Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa uu walaac ku abuurayaa wadamada shisheeye ee diidan horumarka Soomaaliya gaar ahaan kuwa si gaarka ah kaga kalluumaysta ama ka faa'iideysta Soomaalida dhexdeeda waxaana dalalka ugu horeeya ee heshiiskan uu dhibaya noqonaya dalka Imaaraadka Carabta markana maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwad lagu soo oogay xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo loo haysto eedeymo musuqmaasuq ah kuwa oo dhawaan xabsi kala dhigay xubnaha dacwadooda la dhageysanaya ayaa gaaraya ilaa 10 ruux kuwa oo ay ku jiraan agaasimo waaxeedyo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhammaan xubnahan ayaa xeer ilaalinta dalka waxay ku soo eedeysay lusunshada xoolo dadweyne gaar ahaan markii uu bilowga ahaa cudurka faafa ee coronavirus Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ah xeraalyaha guud ee qaranka ayaa hore u sheegay in isagoo kaashanaya xafiiska hantidhowraha guud ay soo qabteen 20 qof oo lagu helay musuqmaasuq ka dhacay howlaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya kadibna lagu halagalay wasaarada kale markana safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa markii afraad maanta muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka Kenya dib u soo celisay gudaha Soomaaliya iyadoo la fulinaya amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee ahaa in dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku xiran dib loo soo celiyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaalo badan ku bixisay in ay ka soo daadgurayso muwaadiniin Soomaaliyeed dalal dhowr ah ay ku xanibnaayeen si ay u soo guriyo noqdaan dowladda Soomaaliya ayaa horay sidan oo kale waxay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalal ka tirsan caalamka ka soo dejisay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana sababta dhammaan muwaadiniintan ay u xirnaayeen kamid ah xaaladda COVID-19 taa oo gabi ahaan inta badan dunida ay kala xiran tahay balse waxaa jira duulimaadyo gaar ah oo ay suuragelisay xukuumadda federaalka Soomaaliya kuba oo amray madaxweynaha Soomaaliya si muwaadiniinta xayiran isla markaana waqtigooda uu kaga lumay meel aysan u baahneen ay u soo gaaraan gudaha dalka Soomaaliya oo ay kalkii hore u soo socdeen markana wasiirka amniga gudaha Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa maanta kulan la yeeshay wakiilka guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Masar James Iswan wasiir Islow iyo James Iswan ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka wada shaqeynta labada dhinac iyo diyaar garowga sugidda amniga xilliga doorashada ee dhawaan la filayo in dalku uu galo waxaa maanta kulan la yeeshay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Iswan oo aynu ka wada hadalnay xaaladda dalka wada shaqeynta labada dhinac iyo diyaar garowga sugidda amniga xilliga doorashooyinka ayuu yiri qoraal uu wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islow uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xubnaha mucaaradka ay ku eedanayaan dowladda federaalka Soomaaliya in aysan diyaar u ahayn doorasho balse dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dalka doorasho ay ka dhacayso isla markaana waqtigeeda ay dhacayso waxaana kulankan dhaxmaray wasiirka amniga iyo wakiilka qaramada midoobay uu si cadeynaya hadalkii madaxweynaha ee ahaa in dalka dhawaan ay doorasho ka dhacayso ugu dambeyntiina sargaal sare oo ka tirsan fallaagada Yemen oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin wada hadallo toos ah oo ay la galaan xulufada Sacuudiga si loo soo afjaro dagaalka 5 sano ka socday gudaha dalkaasi waxaan diyaar u nahay wada hadallo aan la galno wadamada dagaalka ku jira si loo afjaro dagaalka ka socda Yemen 5 sano ayuu yiri Maxamed Ali Al-Houthi oo xubin sare oo ka tirsan fallaagada Yemen ah wuxuu sheegay in ay xiriir la sameeyeen qaar kamid ah wadamada ay dagaalamayaan laakiin ma shaacin wadan kamid ah kuwaasi ilaa ay hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay xukuumadda Riyaad oo ku aadan warka ka soo baxay fallaagada Yemen dagaalka ayaa ka sii daray sanadii 2015 markaas oo Sacuudiga iyo wadamo kale ay ku duuleen gudaha dalka Yemen si loo garab istaaga dawladda sharciga ah ee fadhida magaalada Cadan 10,000 oo reer Yemen ah oo ay ku jiraan rayid ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dagaalka waxaana dalku uu noqday mid kamid ah wadamada ay ka jiraan macluusha ka taagan caalamka guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen qarankaab TV waa naga intaa sida iyo nabadgelyo kulan kale oo xiiso leh
أمن يدور